والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد walaalayaal aad baad horta u mahadsantihiin martida inala joogta ee meelaha fogfog inooga yimi iyo idinka oo runtii ka soo qayb galay culimo diinka abwaaniinta runtii rag iyo dumar ideelkiin aad iyo aad baan runtii idin salaamaya iyo dadka runtii abaabulay walaasheena Firdawso iyo walaalkeen oo runtii xaruntan dhaqanka أو جامعة أساسي الله أباركيه هؤلاء أي كهيان إلهي وحن كبريي الله كيلو مد إلهي درت أي قبطان مد أمد بدن أي كو أنفعان سيدي هدبا رمتي سيدان وأركينه أي إن بدن أو أنفعين أنت أهنا رمتي هل حديث أمبار ربائنا إذا لا شيء قريه إذن كان آد لو ذاكتان ريريهين دلن يردين قوبها تجيسان هداد قشان حتى سوشيال ميديا لكن انتانا قلين ادبان ugu faraxsanahay runtii walaalkeen Abdul Fattah sida uu noo difaacay sida uu runtii u qanciyay walaasheena Firdawsa wax badan bay ka tabanaysaa ummadda Soomaaliyeed wax badan bay nolosheeda runtii ka cabanaysaa kaligeedna ma aha ummad malaayiin ah ma aha kumanaan malaayiin ayaa sida u cabanaya oo aamusan laakiin iyadu way hadashay walaalkii Abdul Fattah waxaan uga mahad celinayaa sida uu u asiibay runtii jawaabta oo ah dadka wax ku dhimay ama malaayiinkan wax u dhimay magacay doonaan hal ahaadeene waa dad qalbiga la disable waana runtii caaqa runta ah ama ninka naafada dhabta ah waa ka qalbiga la ma aha kan indhaha la ma aha kan dhegaha la wad arkaysaa gabadheena si u qurxoon tahay wad arkaysaa wiilkeena dhegaha si uu qurxoon yahay kuwa ma aha gacmaha la ma aha kuwa lugaha la waxaan ku ayidayaa runtii taa hadalkiisa aayad ilaahay uu inoo sheegayo oo uu leeyahay dadkan qalbiga la waa dad loo sameeyay cadaabka ilaahay loo sameeyay jahannamo loo sameeyay weeyaan inay adiga ku ciqaabaan inay adiga ku liidaan inay wax ku qaban waayaan adiga iyo malaayiinka adigoo kala ah waa waxa lagu ciqaabaya dadka waa ka alle uu leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u sameeynay jahannama in badan oo insiga iyo jinniga ah waa kuwii dadka loo sameeyay noocay doonaan ha ahaadana ma aha gaal kaliya ma aha bal qofkii waxa la mid ah gaal u eka la mid ah noocu doona ha ahaada ama duub ha xirnaada ama siyaasi ahaada ama maal qabeen ha ahaada madow iyo cadaan carabi iyo ajami midku doona ha ahaada dadka waxa lagu sifeeyay loo sameeyay halka lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ودد قلبي له لكن قلبي ذا أنا وحبك أركن ويلاقيهم بالير قلبي ذا ودد إن لا ودد إن له لكن أنا أركن دد كان يحقا يوناجا أنا أركن ودد دجا له لكن أن وحبكم مقلن ها نافذ ربط أواكا ما ها عندها يدقها كي كله لكن محي لايهن قلبي لايهن بل عنده لايهن أو جذها بصير ذي لايهن ما ها كوان ويلايهن باليرين دو دقوا ويلايهن واكوان وين مغلان قلبي ويلايهن لكن وحكوا فهم ميان وحكوا أرك ميان وحكوا مغلي ميان محو إلهي كتل ما مدتك ولا شيء نوحي تري مالك قياما وهي استعدتك يا مالك قيامها دتك عذاب كي جلها ينصدر رنتأه maxaa yeelay ulaa'ika kal an'aam ayuu yiri ilaahay waa xoolo ayaa yiri kuwa waa xoolo ayaa yiri marka kuwa walaashay waxba ha ka sugin waxba ha ka sugin waa xoolo yiri bal waa laga sii xaq mariyay waxa la yiri bal hum adall xaqaasi ka sii jiraan aayada ha ku soo degato gaal laakiin gaal oo wixii sifadiisa leh oo dhan bay taabanaysaa marka waxaan runtii aan yara difaacaya waxay aad ugu celcelisay walaasheena khayr Allah siiya Allah barakay nolosheeda iyo mustaqbalkeedana runtii Allah ifiye علماء الدين runtii waa ceebka saliim hadalkaygana aad u dhageysta علماء الدين
وعيبك سليم محايلي إلهي سبحانه وتعالى أيان نجي قانا علماء النبتة السجا وحوليه هي العلماء ورثة الأنبياء علماء وحيد أحلين وعلماء لكن وعلماء كتاب كيس وكليه هي الله إنما يخشى الله من عباده هي العلماء وحاؤون وحاؤون كبق إلهي كبق معنى هذا محاوي سيدي للربي الدون كان أعمره سيدي للربي الدون كان وحبره أمانة أقاضه أفولية دينته أقول رغم ها إنسان كأردن وعلماء ليري مركا علماء إد ملها لكن وحجر علماء أكي مدعامدنا أتقانوا علماء يا عامدو waxay u taqaanaa culimo laakiin culimadu kama tirsano waa caama qof jaahil ah weeyaan garku ma keeno culimanimo duubkan ma keeno culimanimo khamiis la gaabiye ma keeno culimanimo dhaqan way diintu waa dhaqan marka dadka haleynaya magaca ee walaalaheena murugta geliyay runtii kuma tilmaami karna culimo mana aha kuwa ilaahay ka baqayo kuwa iyaga marka culimadeena runtii madaxay noo saaran yihiin culimada rususha booskoodii noo joogan marka culimadeena aynu ixtiraamno eedana iyaga kaliya ma aha hatta kuwa wanaagsan hadee dadkii wax u qaban waayeen waxaan leeyahay waa qayb yar culimadu oo kamida bulshada runtii dadkan na hoos jooga walaalaheena dhiban waxay u baahan yihiin culimo kaliya ma ahane waa qaybaha bulshada oo dhan bay u baahan yihiin madax bay u baahan yihiin siyaasiyiin u baahan yihiin dhaqaatiir bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin macallimiin bay u baahan yihiin culimay u baahan yihiin maalqabeen u baahan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan bay u baahan yihiin xil baa naga saaran culimo kaliya ma ahane xil baa naga saaran dadka walaalayaal walaalkeena maxamed diini khayr allah siiyo waa saaxiibkayga qaaliga ah hadal uu dhahay aad bay ii taabteen iyadana waxaan rabaa in aan ku xoojiyo axaadiis yar dhowr daqiiqo waxa weeyaan wuxuu yiri walaalku dadka waxaan qodobka ugu horeeyay wuxuu yiri qofka waa in uu ku qancaa heerka uu taagan yahay waxa uu yahay ee ilaahay uu yeelay waa inuu ku qancaa waa run walaalaheena naafada ah walaalaheena ama dhigaha la yani xubnaha lixda lixaad ama xubnaha yani gaasirka ah runtii si toos ah ayuu ula hadlayay in ay ku qancaan ma aha macnaheeda xubin hadaad la'dahay waad ka liidataa ka kale ma aha wallahi inaadan ka liidanin bal in aad ka sarreysid baa ayaa laga yaabaa inna akramakum cinda allaahi atqaakum waa ka idinkugu cabsida badan waa cabsi gabadhan maanta quruxa ka muuqata maxaa u yeelay diinta u yeeshay damiirkeeda qoyana u yeelay imisa lixda lixaad ilaahay u dhammaystiray bal nasab fiican uu ka dhaliyay bal uu qurux badnaysiiyay bal uu adduunyana gacanta u galiyay oo ka hodmiyay laakiin asaasa xoolaha ka daran way ka wanaagsan tahay marka meesha ilaahay uu qof walba dhigay in uu ku qanco waa wax wanaagsan cid ka liidatana malaha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilaha litacaarafuu qabiilkan iyo shucuubtan iyo meesha aynu nahay iyo dhulka ilaahay meesha aan ka degannahay iyo cidda aynu nahay runtii waa wax ilaahay uu noo yeelay haddaynu ku qanci weyno waxaynu inkiraynaa rukniga lixaad min arkaani aliimaan in ilaahay qadarkiisa iyo wax uu noo qoondeeyey iyo qaybta uu noo siiyey noloshan adduunka inaynu ku qanacno xaggiisay nooga timid marka qof walba wuxuu yahay ku qancaa gabadha cadaanteeda ha ku qanacdo ta madowgeeda ha ku qanacdo ka gaaban gaabnadiisa kan dheer dhererkiisa kan xanuunsan xanuunkiisa kan caafimaadka qaba caafimaadkiisa nama kala jecel ilaahay bal waa imtixaan qof walba waxa la siiyey waa imtixaan kan loo dhammaystiray nolosha iyo xubnaha iyo kan naaqiska ah wallahi waa imtixaan laakiin waxa guul leh oo guul gaaraya qofka marka uu ku qanco markuu ku raali ahaado wallahi ka unba adduun iyo aakhiro guulaystay walaalayaal midda kale uu ka hadlay ugu dambeysay
waxay ahayd in qofka uu gacan qabto qofka kale si qurux badanna inuu u gacan qabto si qurux badanna inuu ma aragtay uu wax u siiyo qof walba runtii ee Soomaaliyeed wuxuu yiri kan ayl jooga iyo kan magaalo kale jooga yaani waqooyi iyo bari koonfur iyo galbeedba in ka dhiban ee xagga ku dhiban ee wax la in uu u damqo in uu ma aragtay uu u jirnaxo in uu runtii waxa aynu laanahay wax gabadhu ay rabto in loo sameeyo waa waxa aynu laakiin waa wax waajib nagu ah xabiibka dhiirigelinaya oo dhahay salawaatu wa salaamu alayhi almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da soo mu'miniin ma ahin idelkeen mu'minka jooga koonfur ee ka galbeed jooga ka waqooyi iyo bari kale jooga meel walba adduunka cadka iyo madowga waxa la yiri waa bunyaan waa dhismahaasoo midba midka kale uu adkeynaya dhagxaanta iyo bulkeetiyada waa la dul saaraa waa la soo dhigaa waa la dhinac dhigaa si ay isu adkeeyaan dhista waa la garab dhigaa si ay isu adkeeyaan hal xab wax ma tarays wuu jabaysaa laakiin mu'minka kale wuxuu u yahay dhis adkeynaya waxa laynoo kala qaatay ee adduunka aynu ugu firinay tusbax kala go'ay tusbax uu isaasta uu is adkeeyaa laakiin tusbax go'ay waxaynu u noqonay qaacidadan ayaynu halmaanay marka waa runtii wax lagu farxa maanta in runtii la helo dad baraarujiya oo ahlu diin kaliya xataa aanan ahayn abwaaniintii siyaasiyiintii yaani bulshada qaybaheedii kala duwanayd waxay gelintu way noo wada taala idaylkeen Aisha radiyallahu anha wa ardaaha marka ay wax la baxayso sadaqada ay la baxayso waxaan rabaa macnaha kan wax bixinaya in uusan dareemin inuu ka sareeyo kan la siinaayo kan wax qaadanayana inuusan dareemin in uu ka hooseeyo kan wax siinaayo walaalkeen wuxuu ka dhawaajiyay in isagoo xataa ma aragtay in kasto la kala roon yahay uu jeebka si qarsooda ugu geliyo sababta waxa waaye qofka isaga ah waa todobada ilaahay uu hareynaya maalinka qiyaame qofka sida yeelaya si uusan walaalkii uusan u qabjabin u qarinaya markuu isku dubo uu salaamo uu tartiib dhinac u gelinaya kasta waa damiirkiisu ilaalinaya todobada la janaynayo mid kamida weeyaan وهرك إلهي وهرسناي عائشة محيس من جرتي الباب كالله سو قرعة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الباب كمرك الله سو قرعة نين يرو توكسناي قبر توكسنايسا مركاسا محيس مينيسا حدي قرق العق اي تالو درهم كنت سو قاد انت انيسينين عتر اي مرنيسي ويعرفينيسا درهمك مركاسا ويودي بيسا قعنتيدا هوس جرتي اوغو قادي لها قبسو markaasay siinaysaa marka uu qaato yaa gacantay sareysa waa gacantii ninkii wax qaadanaya sareysa اليد العليا خير من اليد السفلى iyada ma rabta qofkan in ay xogo ay sumuujinay wax siisay ama isagii uu dareemo ducfi hoose intee sasalada qabso uu carfaya ogow markuu qaado uu farxaya uu duceynaya mar allaale markuu duceeyo miskiinka iyadana way ka daba duceynaysaa dadka ag joogo waa la yaabeen maxaad u carfisaa hoos maxaad gacanta ugu dhigtaa adiga ma sare martid maxaad ugu duceysaa isaga duceeye ilaa inuu ku duceeyo uu ku abaalmar maxay tiri waxaan ogahay bay tiri faqiihada sida inaynu noqono weeyaan waxay tiri waxaan rabaa waxaan ogahay sadaqada gacanta miskiinkan qofkan baahan intaanay ku dhicin waxaan ogahay gacan ilaahay bay ku dhacaysaa ilaahayna wuu korinayaa marka gacanta alle waxa ku dhacayo wax tayyib ah ilaahay tayyib waay wax tayyib oo buu aqbalaa in li aqbalan doonaya maxaad ugu duceysaa baa la yiri shaygan aan carfiyay ee tayyib ka ah ilaahay agti ii tagaya ayaan doonayaa si saliim ah nabad qabta in oo bid qabta in ay iigu tagto ducadiisa marabi iyo shilinkii aan bixiyay inay isu baxaan marabi mifahmaysan waxaan rabaa ducadeyda iyo ducadiisa ay isu baxaana shilinkan carafta badan ee qalbiga ka soo go'ay ee aan walaalkii ugu deeqayay ilaahay agtiina ii tagan doonaya fiqigaas oo kale aan laga rabaa marka waa wax wanaagsan walaalayaal waxa aan rabo halka xadiis ee aan idin la qaybsanayo waxa waaye idaylkeen intan maanta meesha fadhida dhalinyarada iyo xataa waalidiinta wax dhulka ka soo baxay malaha wax cirka ka yimidna malaha qof baa dhalay waa layna keenay halkan waxa ina keenay alle ka soke waa waalid weeyaan idaylkeen nolosheena annaga kaliya ma maareyno
bal dad baanu ku tiirsannahay oo nolosheena farxad nala soo qaybsaday nolosheena maaragtay murug nala soo qaybsaday nolosheena soo dhisay na garab taagnaa wax na soo baray na soo guubaabiyey na soo tawjiihiyey wax na soo baray na soo kaabi runtii wehel noo noqday xabiibka salawaatullahi wasalaamu calayh xadiiskan waxaan u soo qaadanayaa meeshaan uu quseeyaa waa isku xirka dhalinyarada iyo dadka waaweyn miyaa la yidhi soo ma garan yacni bulshada qaybaheedaa la isku xirayaa laakiin xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam 1430 iyo hodhodho ka hor ayuu isku xiray ilaa qiyaami saaca in qaacidadan aynu haysanaa la doonayaa waa ka uu dhahayo ku salli xabiibkaaga sal allahu alay wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh qaacidadan ila eega in yar qofkii wanaag idiin sameeya dadkoo dhan baa lala hadlayaa bulshada qaybaheeda kala duwan maalin uu noloshaada wax ku tara ku garab istaaga wax yar iyo wax weyn qofkii wanaag idiin sameeya u abaalguda ayaa la yidhi kii wax ku soo baray u abaalgud kii maaragtaayay maalin shaha kaa bixi u abaalgud kii noloshaada murugd kula qaybsaday u abaalgud farxad noloshaada uurkaaga geliya u abaalgud haddaydan u abaalgudi karin u duceeya oo ducada badiya ilaa aad aragtaan in aad u abaalguddeen eeg qalbiyada siduu isugu xiraya xabiibka salawaatullahi wasalaamu calayh gabar baa waxay leedahay $10,000 ayaan wiil aan habaryar u ahay magafe aan ka siiyey mar allaaliyo maalinkii inta horena telefoon ugu wareerinay 10kii markaan dhiibay oo la soo daayey in la soo daayey unbaa la ii sheegay mar dambe oo sanooyin kadib waxaan ka war helay in uu waddan ka mid wadamada Yurub uu iska joogo abaalkaas ka warram Ilaahay baan ku dhaariyay aaway markii horena saacadu ula hadli jiray maxaa loo baahnaa wiilka inuu yiraahdo kow maaha laba maaha saddex maaha maxaa loo baahnaa inuu walaashii habaryartii u mahad celiyo soo maahayn way ku farxi lahayd bal wax kale u sii qaban lahayd soo maaha marka aad lagu leeyahay u abaalguda markaad u abaalguddo qofka noloshaada maanta wax u geysta oo gacanta ku siiya waxa way markaad u abaalgudid farxad baa gelays horta tii Ilaahay waad gudatay wixii ay lagu tarayna waad u guday taada kale waxaad ku dhiirigelinaysaa qofkan in uu dad kalena uu soo saaro oo uu wax u qabto ay ku dhiirigelin gabar baa waxay tiri wallaahi intaan aan qabanay in ka badan ayaan qaban lahayn haddii kuwii hore aan wax ugu qabanay waad mahadsantihiin kali ayna dhihi lahaayeen marka nolosheena waa kuwa ugu horeeya nolosheena runtii gacanta wanaagsan kule waa waa waalidka weeyaan waa hooyo iyo aabbo khaasatan hooyo rasuulka waliba siiyey eeg salawaatullahi wasalaamu calayh ma aha hadal kaliya bal ficil ahaan buu u siinayaa abaalgudka oo uu leeyahay eeg noloshaada xoogaaga iyo xoolahaaga iyo waqtigaaga iyo wanaagaaga waxtarkaaga oo dhan iyo cilmigaaga 75% ayaa hooyo la siiyey waa ficil ahaan u muujinaya man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh 75 baa noloshaada hooyo la dul dhigay aabana waxaa la siiyey 25 cadaalada eeg soo ma garan marka Ilaahay baan ku dhaariyay hadalna haduuna yiri ficilna uu muujiyay ku dayasho soo ma mudna walaasheena Firdawso ilmaheedii ka soo tagtay reerkeedii bay dayacday ka soo tagtay halkan ay furtay say bulshada isugu xirto dhowr sano halkan furan tahay dhaqanka bulshadan lumay inay soo celiso wanaageedii inay soo celiso cizigeedii iyo sharafkeedii inay u soo celiso hadda waxaan maqlayaa gabadhii aan dadkan dhagaha la'aan u tababarnay markaan tababarkii u dhameynay way iska baxdo kanadii aadi way iska tagtaa liyir Soomaalidan garan marka maxaa loo baahnaa laakiin hawshan waa hawshii loo tababaray soo xad gartay maaha marka inta kaliya maaha Hargeysa markaan tagay wuxuu yiri sheekh mar walbo aan maktabadaha iyo qaabka iyo kitaabada sida loo sameeyo aan intaan dhalinyaro xoog gelino aan tababarno mishaar u bilowno waxaad arkaysaa Masar uu tagay oo tahriib u aadaal leeyahay marka ciidan wax barnaanba la'naha leeyahay markaas hadii oramaha dadka kale ajaanibta meeshii imanaya marka aan qaacidadan ka dhigano wallahi way anfacaysaa bulshadu dhanna way isku xiraysaa man sanaca ilaykum macruufan
fakaafi'uuh qofka noloshaada maalin ku garab istaaga u abaalgud thank you dheh waad mahadsan tahay dheh u abaalgud af iyo adinba haddii aadan u abaalgudi karin u ducee ducadu waa mahad aanan xad lahayn xataa qofkaa dhintay hadduu dhintay kii wax ku soo taray way gaaraysaa ducadu way gaaraysaa marka aan isu ducayno khaasatan waxaan ilaahay uga baryayaa walaalaheenna halka jooga ee naafada ah waxaan ilaahay uga baryayaa runtii in uu ku irsaaqo qanaaca inay ku qancaan runtii qadarka ilaahay garabkooda ha galo ilaahayna waxaan ka baryayaa runtii ma dhihi kari maanta kitaabo noocaasaan u keenaya laakiin alxamdulilah waa universal oo runtii international ah meel walbana wuu gaaraya gabadha codkeedana wuu maqlayay meelo badan way gaari doontaa waxaan ilaahay uga baryayaa baahidooda cilmiga ay u qabaan iyo imkaaniyaadka inuu ilaahay u fududeeyo goordhown inuu ilaahay u keeno runtii inteedaaba ku filan dad badan oo indho qabaanba intaas aanan haysanin in ay dareemaysa aan dareemi karin aad baan idin salaamayaa ilaahay waxaan ka bariyay inta xanuunsan Allah caafiyo ummadeen waa wada xanuunsan tahay runtii ideelkeen waa wada xanuunsannahay indhahaynu ka xanuunsanahay indhahaynu wax wanaagsan ma arkaan dhegahaynu ka xanuunsannahay wax fiican way diidan inay maqlaan bal qalbigaynu ka xanuunsannahay runtii qalbiga wax wanaagsan in aan u furno oo aan nadiifino waan diidnay gacmaheena waad aragteen lugaheena kaba sii daran marka xanuunku waa xanuun caam ah ilaahay hayna wada caafiyo ilaahay ayna wada caafiyo ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha caafiyo dhulkeena amni amaan Allah ku soo celiyo muraadada leedihiin ideelkiin runtii meel kala duwan ka timaadeen ilaahay qof walba muraadku ilaahay ka doonay Allah siiyo ilaahay muraadkeena ha siiyo gabdhaha intaan guursan guur xalaal Allah u sahlo runtii guurku waa farxade guurku waa waxyaabaha rasuulka iyo diinteena sunna rabbaaniye inta aan guursan guur xalaal Allah u sahlo guur ay ku dagaan guur ay ku dhowrsoodaan guur uba saalix ay ka helaan ilaahay ha u sahlo gabdhaha waxaan uga baryayaa ilaahay mid madaxa u saaran indhaha hortooda u jooga faraanti ay ku xaragoodaan u noqda ayaan ilaahay uga baryayaa akhlaaq iyo diin leh raggana sidoo kale ilaahay waxaan idinkaga bariyay inta guursatay ubad aanan dhalin ubad saalixeen oo ilaahay siiyo bulshadeena qalbigeeda Allah isu xaaro bulshadeena Allah isu keeno intii isjecleed oo dhan baa kala maqan labadii isqabtay labadii maaragtay wada dhalatay kuwii wada dhashay jaarkii wanaagsana asxaabtii isjecleed waa kala maqan yihiin adduunyo lagu kala maqan yahay ilaahay waxaan ka bariyay iyagoo wada joogo wuu karaaye adduunyadooda ha siiyo حلال الله نقول إرزاقه حلال الله نقول إرزاقه برسمات الله نقول سعليه أمني أمان الله نسيه إلهي وحن كبر يا فردقان ما أنت عينو فردني هلكان كوي الله نجيله وحي وناكسن هلكان أن كان يرنتي كوي قاته أو كل رغمة الله نجيله آد بندين سلام يا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله